جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دقاليق إيقوية دمانتين ميل بودني داد كجوكتان وولاشين بريرو إذن دهيسو فيديوغي أفراد oo su-aashii afraad aan kaga jawaabayo videogeena afraad waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo habkii lugaha iyo gamcaha aad u qorxi lahayd. su-aasheeni afraad waxay ka hadlaysaa lugaha iyo gamcaha habkii aad u qorxi lahayd. waxaa jira gabdho halkaas ka madow, inta ka madow, meelahan ka madow, meelahaas ka madow oo jirka hadda sida gacanteyda ay isugu egtoo kale aan isugu ekeen oo haddana maqaar ka saaran yahay maqaar aada u waaweyn oo adeegkana ah. okay, laba siyaabo ayay ku timaadaa. siyaabo number 1 waxay ku timaadaa waxay tahay in aad mariso bleaching, oo markaad bleaching marisid meeshii inta madowga marka go-ayo meesha waxay sii noqonaysaa meeshaan kale kasii madow. marka madowgiisu saa-id wuxuu u noqonaa waxay tahay intaad caddaysay, markaad caddaysay inta waxay noqonaysaa madow. okay, inta marka madow ay noqoto, marka gacanta markaasaa istiraadid oo kale ama gacanta aad hadlay sidoo kale gacantaadii waxay noqonaysaa meel madow meel cad. lugahii marka waad caddaysay laakiin farihii waa sidii. marka waxaan ku dhihi lahay haddaad caddaynaysid natural way u caddeey, ka jooji in aad kiimika marisid, waayo kiimikadii skinkaaga ayay cunaysaa oo hadhowdii dhibaato weyn ayay kuu soo jiidaysaa. dab ma aad geli karaysid, qoraxdana uma aad kagsan karaysid oo skinkaaga dhaawac ayaad gaarsiisay. okay, inaan daawo ka hadla ma ahayn, laakiin waxaan ay ahayd in aan ka hadlo su-aasheeni afraad habka aan u nadiifi lahayn. habka u nadiifi lahayd waxay tahay horta the reason number 1 uu ku imaanay madowga waa saas. number 2 in aadan nadiifin oo aadan nadiifinin. tan saddexaad oo aan raba inaan ka hadlo waxay tahay waxaad arkaysaa gabar issoo qurxisay wejigii maasha allah tabaaraka allah beautiful ka soo dhigtay, laakiin gamcihii indhihii markay ku dhacaan bariiroo kale iska joogto. indhaha markay meel walba kaa fiirinayso hadda iska keefaan bariiroo kale markaan ku dhaho yah aad joogto lugihian kaa fiirina. lugihii markaan kaa fiiriyo maxaan arkaa lugahaagii oo foolxun, maxaan arkaa gamcahaagii oo kusoo dayay. marka waa inaad sida wejiga aad u xanaanaysay gamcihiina iyo lugihii aad u xanaanaysid oo aad maxaal dhahayay u caddaysid. waa easy. marka caddaan aan dhahayana ma ahan caddaan oo ilaahay subxana wa tacaala aan kuu dhalinin, waxa waaye skinkaaga sida u qurxi lahayd oo wixii madow ah kaga jar lahayd. okay, lugahayga ma idin tusinayay, laakiin waxaan rabaa in aan gamcahayga farahaygaas tusaale ahaan aadan kaga qaado. lugtii markay ifisan tahay oo aad ku taaganta oo kale, faraha lugaha meeshaas ay farihii ay labada far isaga imaanayaan oo kale, waxaa sida run-aanta markaad qubaysatid oo kale waxaad u baahan tahay inaad iyaga buraash aad ku nadiifisid, waayo waad qubaysatay lugihii ayay wasaqdii o dhan sii marayaan. lugaha haddaadan nadiifinin lugihii madow ayay kaa noqonayaan. marka maxaad madowgii aad kaga dhaqi kartaa in isla markii aad dhaqdid wiigina 2 jeer lugahaaga iyo gamcahaaga aad nadiifisid oo aad qurxisid. wax yar iska easy ah ayaan rabaa inaan idinla sheer garayo. waxaas easyga oo kuu sameynayo lugahaagii
يجمعهاجي نظيف كدقاي بيكنج صورة محل ده إيش أو ملقعده أي سوق قادنيسا waxa soo qaadanaysaa suru ama malab markaas kaad haysatid ayaad ku darsanaysaa lugihii gamciyaha manas waa laba shay taasiyad shay saddexaad ma kaaga baahna laba shay saddexaad kaaga ma baahna waad marinaysaa markaad marisid dhagaad ku siisanaysaa musqushaad la tagaysaa ama meel shamiito ahoo uu rooga kaaga wasaqoobaynin ما شاء الله تبارك الله مركز كويستي 20 minute بيرا سوق قادسة وتكون شو بس وتكون مساجين السا فريه دحدودي لوجها ساس الله ده ساس ودحجلنا سا فريه ساس ودحجلنا سا وتكروجي سا وسقدي الكاجي جبسة ديد سكين كلهم وحي وسقدون لقطة واحدة أركسة شايني وقروح بدن وعد لا ده هاي ما شاء الله محل وهيجا عدي وناتورال كاسad ku nadiifinaysaa marka waxa soo qaadanaysaa hadaad haysatid cream oo fiican oo ku naasimayo oo aleedo wow creamkan jirkeyga wuxuu ka dhigaa ma sha Allah tabarakallah dhag ayaa isku siinaysaa laakiin hadii aad weysid ama meesha joogtid cream fiican ba aad ka helinin waxaad heli kartaa فصلينك ayaa soo qaadanaysaa basaliinka marka soo qaadatid waxaad ku darsanaysaa saliid qumbaad ku darsanaysaa malqacada haafkeeda fasaliina soo qaadanaysaa malqacada haafkeeda waxa soo qaadanaysaa saliid qumbaha dhag isku qaraacaysaa ugahaagi gamcaaga marsanaysaa special habeenkii marka siixanaysid oo marka wasaq aad qubaysatid wasaqaadkaaga dhimaysatid oo jiifkaaga isku sii diyaarinaysid lugahaaga ilaa jilba iyo cajarada dhag inaad ku siisatid sugsaantaada gashatid seexo subaxdii waxaa soo kicisa jirkaagiyo oo saas gacanta aad ugu raadinaysid gacanta aad ugu taataabanaysid ayaa soo kicisa gamcahana markastoo weel aad dhaqdid markastoo aad weyse qaadatid markastoo aad gacanta iska dhaqdid mari inta sababadaa shay oo shay saddexaad aan lahayn skinkaagu wuxuu ka dhigaa skin aad iyo aad u qurux badan haddee insha allahu waxaa samayn kartaa oo kale haddaad rabtid madowga inaad la degaantid intii aan idiin sheegayay oo faceka la marinayay sida huruudda sokorta tabaandha xabuubta adduunkaasoo dhan inaad isku qooshtid ayaa lugaha marsanaysaa gamcahana marsanaysaa waad ku haynaysaa maalintii 2 jeer ama 3 jeer ayaad marsanaysaa kabacdi waad ka dhaqaysaa laakiin midkan baking soorada markaad isticmaashid 2 bir aad joogtid hada ma saddexaad aad isticmaali kartaa laakiin every single day ma isticmaali kartid maxaa la dhahay baking soorada waxay ka dilaysaa maxaa la dhahay deeha skinka ama labeenta skinka ayay ka qaadanaysaa because marbo skinkaaga ayay fiiqaysaa marka ma fiicno 3 cisho maalin marso insha Allah hadda barnaamijkeena maanta intaas ayaan ku soo gabagabeynaa hadii alla yiraahdo su'aasheena afraad aan ka jawaabayay jawaabteena waa taasa insha Allah marka intaan dib dambe ka kulmayno waxaan idin leeyahay fi amaanillah Allah ma'ak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh مين فيكم ينسى على طول تجمعكوا أحلى حياة